tan dambe oo aakhirka gabagabadeenna waxa weeye sulaxadii meesha lagu ziyaaranaya caawa ilaahay ridihiisa ha siiyo sulaxada waa kuwa hadda aan sheegayno oo ilaahay dadkiisa ayuu kala fadilay rusushiisiibuu kala fadilay iyo ambiyadiisii addoommadiisa kale kala fadilay dadka ilaahay fadilay oo sulaxada ah tadkiradooda xuskooda u ducayntooda tawasulkooda inta oo dhan waxa weeye waxa wax lagu helo oo ilaahay wax looga helo ayay ka mid tahay qofkan wanaagsan asaguna ilaahay agtiisa waxbuu ku leeyahay adiguna waxbaad uga helaysaa ilaahay ixtiraamkiisa takriimadiisa u ducayntiisa ilaahay oo ugu tawasusho intaba waa da'bigii saxaabadu ay samaynayeen ilahay baa quraankiisa muxuu ku leeyahay walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faاstakfiru llaha wastakfara lahum الrasuulu lawajadu llaha tawaaban raxiima marka ay dambaabaan oo ay xadgudbaan hadday kuu yimaadaan baa ilaahay leeyahy rasuul allah oo ilaahay dembi dhaaf weydiistaan markay kuu yimaadaan adiguna aad ilaahay dembi dhaaf u weydiiso ilaahay kii u dhaafahaya bay ku ogaan ilaahay waa u dhaafi macnaha markay dambaabaan ilaahay hadday u noqdaan oo ilaahay dembi dhaaf weydiistaan lama oran waxaa la yidhi markay dambaabaan hadday kuu yimaadaan lidaalika ma dhici jirin qofku hadduuba rabo toobad hadduu khalad galo haddii uu inuu u yimaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yidhahdo ilaah ii dembi dhaaf ii weydiiye intuu isagu halkiisaas iska jooga ma badnayn ma dhacaynba inuu isagu ilaahay dembi dhaaf weydiisto intuu rasuulka u yimaado ayuu lahaa ilaahay dembi dhaaf ii weydiiyey lidaalika raggii qof kasta oo khalad galaa ama qof kasta oo dambaabaa intuu u yimaado ayuu lahaa ilaahay dembi dhaaf ii weydiiyey qaarkood waxay odhanayeen atuubu ila llahi wa ilaa rasuulih caaisha u soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigii baa waxaa uga muuqday wuxuu aada u karaahiyeysanayay oo baal sawira iyo waxyaalaha naqshado badan iyo leh wejigiisoo isbedelay markay aragtay maxay tidhi atuubu ila llahi wa ilaa rasuulihi famaada adnabtu ya rasuul allah ilaahay baan u toobad keenay iyo rasuulkiisaan u toobad keenee maxaan ku dambaabay oo aan bi'iyey bay tiri rasuul allah wax badan bay samayn jireen sidaas marka dadka wanaagsan oo ilaahay kaaga wanaagsan takriimadiisa aad karaamayso xushmadiisa aad xushmayso ixtiraamkiisa inta oo dhan adiga waxbay kuu tahay waxbaad ku helaysaa ilaahay baad wax uga helaysaa qofka fiican qofka xun asagaa kaba quraankiisa ilaahay muxuu leeyahay waladiina aamanuu waatbacnaahum duriyatihim biiimaan alxaqnaa bihim duriyatihim wama alatnaahum min camalihim min shayin baa leeyahy kuwii iimaanka fiican laga helay waxaan raacinay duriyadoodii iimaankaan ku raacinay hadduusan ilmahaagu iimaan lahayn adiga camalka wanaagsaneed samaysay aabbaha ah anfici ow mahayo markuu iimaan leeyahay bu laakiin anfacahaya aabbihii baa waxaa lagu raaligeliyey ilmihiisii lidaalika waxaa la yidhahdaa markii qofka fiicanu ou tago jannada oo ilaahay jannada geeyo you leeyahay rabbi raadi noqonaan mahayo ilaa aad ii aan arko ayna abi wa aynat ummi wa ayna awlaadii buu odhanhaya wixii aad samaysay oo kale ma ay samayn baa lagu odhan markaasuu odhanhayaa ilaahu anigii ayaga waa u sameeya waxaan sameeyey waa aayaddan lafteeda wamaa alatnaa min camalihim baa la yidhi wamaa he ii sheeg min camali min shay kuwaan camalkoodii qaar laga qaadi mahayo aabaada oo la odhan mahayo haya qaybsada ee asagiina waa intii oo kalea la siinaya aayaddii kale ilaahay muxuu nagu lahaa oo sidaas malaa'igtu ay u dambi dhaaf dalbaysay dadka oo markaasay markii ay u dambi dhaaf dalbaysay wasicta kula shayin raxmatan faغfir liladiina taabuu waاtabacuu sabiilaka waqihim cadaab aljaxiim rabbanaa waadkhilhum janaati cadni alati wacadtahum waman salaxa min aabaa'ihim waazwaajihim waduriyatihim baa ilahay leey malaa'igtii markay u dambi dhaaf dalbahayeen oo ay u ducaynayeen muuminiintii
yay maxay yidhaahdeen ilaahayow jannadaas aad u yaboohday geli waman salaxa min aabaa'ihim waaswaajihim waduriyaatihimna ilaahayow geli wixii iimaan laga helay oo kuwaan wanaagsan aabaadoodii iyo awlaaddoodii iyo aswaajtoodii ahna ilaahow geli jannada bay odhanaya marka qofku marka wanaagsan oo saalixa wanaagsana ou jannada galo wuxuu odhanayaa ilaahayow ilmahaygii ii keen aabaadaydii ii keen aswaajtaydii ii keen markaasaa intiiba ilaahay u keenaya salaaxadiisii baa loogu keenaya isaga ficnaantiisii yaa loogu keenaya waxa weeye sulaxada cid u dhow iyo cid ka fog inta oo dhan ba saasay uga helahayaan raggii waa wanaagsanaa ninba ninka kale ayuu ku tawasulahayay ninba ninka kale ayuu ilaahay uga dalbahaya raxmadda haddaan in yar hadda soo qaadano oo raggii waan wanaagsanaa ah oo maalan la yidhaahdo ninba ninka kaleba wuxuu lahaa hebel ayaa raxmaddu sababtiisa ku timaadaa ama ay ku da'daa sakhaawi markii uu fii tarjamati imaamu nawowi ka hadlahayey muxuu yidhi imaamu nawowi baa wuxuu yidhi sufyaan bin cuyayna ninkii aad taqaanidoo hadde muxadidkii weynaayo raggii axaadiidta looga dambeeyood og tihiin oo noo soo ururshaya raximahu llahu sufyaan bin cuyayna wuxuu yidhi cinda dikri saalixiina tanzilu raxma sulaxada markiiba la xuso imaam nawowi baa soo rarahaya naxariista ilaahay baa soo degta maxamed bin yunusna wuxuu yidhi imaam nawowi baa soo rarhaya maa ra'aytu lilqalbi anfaca min dikri saalixiina anigu ma arag buu yidhi qalbiga wax uga wanaagsan oo ka jilcin og oo uga nadiifsan saalixiinta xuskooda markii uu sharxayay kitaabkiisa saxiixu muslimka yow rag fara badan oo xufaadiya imaamu nawowi wuxuu aada ugu dheeraaday tarjamadooda marka waxa u dareemay tarjamada dheeraynteeda ninkan kii saas ahaa oo saa ahaa oo saa ah oo saa ahaa in dadka cajzi ay ku samayn karto wuxuu yidhi qoladaas aan istisqaha ku samaynhayo waa kuwa raxmaddu ku soo da'do siiradooda iyo magacooda marka la maqlo ha cuslaysan ogow haddaad cuslaysato siiradooda qalbigaagaa qurun ku jiraaye iska dhaq buu yidhi imaam nawowi adaa qalbigaaga cudur ku jiraaye dib u noqo waa kuwa naxariistu kusoo degta sababtooda ibnu casaakir wuxuu yidhi isaga oo ka imaamu nawowi uu soo rarahayo wuxuu yidhi karir calaya xadiiثahum ya xaadi faxadiiثahum yejlis faadi saadi imaamu nawowi baa soo rarahaya celceli oo iigu soo celceli dadka waa wanaagsan hadalkooda xuskooda sheekadooda ka sheekayntooda tadkiradooda iigu soo celceli faxadiiثahum yejli faadi saadi wuxuu nadiifiyaa warkoodu qalbiga midhiraysan ee wasaqaysan ayuu si fiican u nadiifiyaa buu yidhi ibnu casaakir fii taariikhi dimishq wuxuu ku soo rarahayaa ninkii la oran jiray bishr alxaafi raggii waa weynaayo ilaahay nin ka mid ahaa buu ahaa bishr alxaafi wuxuu yidhi ina aqwaama mowta tuxya alquluuba bidikrihim wa ina aqwaaman axyaaan taksu lquluuba biru'yatihim dad dhintay qalbigaa ku noolaaduu yidhi ama uu sifeeyaa xuskooda kuwa nool noolna aragtidooda aad aragto yaa qalbigaagu ku dhimanaya dadka fujarada kuwa mubtadacada kuwa jaa'iriinta kuwa zanaadaqada kuwa muftariinta oo diinta ka beensha kuwaasoo dhan aragtidooda qalbigu waa kaaga dhimanaya kuwii dhintayna qalbigaa kuugu nadiif noqonaya xuskoodii wuxuu yidhi xaafidkii weynaa muctasir ibnu xajar ibnu abi jamra dheh yustajaabu ducaau cinda dikri cimraan bin xusein
كانت الملائكة تزوره لما قام به مرض البواسير وكي صحيح مسلم كاياد قلت لي أحاديثي مركو ورين هي أسقنا أو كان لا يرنتيسا وحول لي هي وحنا هم الله سلامه مركاسان إلهي بري وان بسكودي سلامتي بقى قعدي دبان هدنا إلهي بري يعني سلامتي إلهي يسوع عليا مركاس يسوع نور معنا ملائكة مسافحين شرتي مركا waxaa la yiraahdaa markii magaciisa la soo qaaday Imraan bin Hussein saxaabiga weynaa ducada waa la ajiba اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اعتق رقابنا soo qaadkiisa baa ducada lagu ajiba ibn al-Jawzi xaafidkii weynaa wuxuu yiri ذكر للإمام أحمد بن حنبل صفوان بن سليم وهو تابعينتي ووينان كمدها أحمد بن حنبل با وحا الله شاقي نكا صفوان بن سليم الأورنجري هي قلة حديثه حديث سيران تيدي فقال أحمد وحو يري هذا رجل إنما كان يستشفى بحديثه ويستنزل القدر بذكره صفوان بن سليم وحوها حديث كيسة أما ور كيسة أما شيء كبيسة من لغش فضلبه قفك حنوصا وكدوبه والله شفيسة لغو ضلبه راب كان لغو ضلبه رجي أدوى وينابو كمدها محمد بن أبي منصور نوحو جري صفوان بن سليم كان لورنجري صحابة دي إن بدن بوكا قاتل علمك وحوها إمام وينا عبد الله بن عمر إيو أنس إيو جابر بن عبد الله إيو رجع صودن أو صحابة دي سعيد بن جبير إيو علمك كقاتي تلاميذ دي سنة وحا كمدها إمام المالك إيو سفيان الليث إيو ابن جريج رجع فرا بدن أحمد بن حنبل وهو يري مركله يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره ثقة من خيار عباد الله الصالحين شيء كذيسة دوا لغو ضلباء أو ددك لغو دوية أو قفك حنوصا أو إلهي لغو بريا كدوا بهي وحاجر سنة اللي يرى هذا صعود المجانين وحال يرى هذا رجي هروطا قفك سيدو ربا مركو واليه سنة كاس يي انتي أغريان بيكتو في جرين أما سن كابل لوغا شو بيجري هوري بقف كل غايب جري صعود المجانين نما waxay ahaayeen aalubayd ah oo isku daba taxan Musa al-Kadimi Ali al-Murtada ninkii loo ranjiray Jaafar al-Sadiq Muhammad al-Baqiri Zayn al-Abidin bin Ali Hussein Sayyid Ali ilaa todobadaas inay ahaayeen baan u maleynaya sanadka marka xadiis badan bay aad u wariyaan sanadkooda marka kutubta soo qaadan oo waa Saud al-Majani baa la oranaya sanadka Saud al-Majani marka waa magac sanadkooda saa loo taxakiliye ayay saa ku ahaayeen wuxuu leeyahay marka ninka la yiraahdo wuxuu ahaa qoladaas buu kamid ahaa dabaqatu Shaafici ninkii loo oran jiray Subki wuxuu yiri ninka la yiraahdo عبد الملك محمد بن إبراهيم أبو سعد لورنجري وحو أهابه يري فقيها زاهدا من أئمة الدين وأعلام المؤمنين ترجى الرحمة بذكره حسكي سلا حسه متكي لغو رجيه إلهي نحريستيسا أيوها مربع هدي الله حسه نحريست إلهي بإيمانيسي طبقات الشافعي السبكي وحو كلو كل ياهي وكتبت مراجع ده أهد شاهد بوضع وطان وحان حافظك اللورنجري عبد العظيم كان حافظا كبيرا ورعا زاهدا ولي الله والمحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقيه على مذهب ابن عم رسول الله ومذهب الشافعي ترجى الرحمة بذكره ويستنزل رضا الرحمن بدعائه وهوها كين حريست حسكي سلغو رجيو حسد الله حصه إلهي رده سنة دعاديسة أي كسو دقي شرت يستنزل رضا الرحمن بدعائه
xaafidu suyuudi jalaalu suyuudi aad garanaysid wuxuu yidhi shaykhii la odhan jiray axmed binu ismaaciil binu bakar binu cumar wuxuu ahaa buu yidhi saalix zaahid ah alwaliyu lkabiir walimaamu shahiir wa kaana rajula yustasqaa bihi lkaysu wuxuu ahaa mid madarka lagu dalbo marba haddii ilaahay lagu weydiista madarkiisa saacadda uu soo shumo tahdiib alasmaa imaamu nawowi wuxuu ku yidhi fii tahdiib alasmaa waluqaat fii tarjamati ibnu mubaarak markuu ka hadlahaya cabdullahi ibnu mubaarak kaana cabdiraxmaan bin cabdillaahi bin mubaarak cabdiraxmaan bin cabdillaahi bin mubaarak wuxuu ahaa buu yidhi imaam buu fii kulli shayin horta u ahaa alladii kiibuu ahaa tusdanzalu raxmatu bidikrihi wa turja almakfaratu bimaxabatihi wuxuu ahaa midkii ay ku soo degta naxariistu xuskiisa la xuso wa turja almakfiratu bimaxabatihi jacaylka aad jeclaatana ilaahay makfiradiisa baa lagu helahay raggii axaadiidta laga qaaday ayuu ahaa cabdullahi cabdiraxmaan ma ahna cabdullahi binu mubaarak weeye abu cabdiraxmaan baa la ohan jire oo wiilkiisa cabdiraxmaan la ohan jire asaga cabdullaahi binu mubaaragii aad taqaanay ee taabica weyn ahaa waa ninkii la yidhi saxaabadii waxay dheeraayeen mushaafahadii rasuulka un baan hadda ciduna samayn karin wixii ay la sameeyeen oo mushaafahadii rasuulka iyo salaaday ku daba tukadeen iyo qaswigii ay la galeen ayuusan maalan ba yaan cidna samayn karin ma ahane cabdullaahi binu mubaarak wax walba nin noqday buu ahaa baa la yidhi zarkani cala almawaahib ladunya wuxuu ku yidhi alimaam cabdillaahi binu mubaarak tanzilu raxmatu bidikrihi tustanzilu raxmatu raxmaddaa lagu dalbadaa naxariistaa daisteeda lagu dalbaa xuskiisa la xusay ibnuljawsina wuxuu leeyahay ibnu cuyayna markii uu ka hadlahayey day hadda nadartu fi amri saxaabati wa amra ibnu lmubaarak ibnu cuyayna yidhi sufyaan binu cuyayna wuxuu leeyahay cabdullaahi binu mubaarak yaan fiiriyey saxaabada amarkeediina waa fiiriyey famaa ra'aytu lahum calayhi fadlan waxay cabdullaahi binu mubaarak la dheer yihiin ma aan arag ilaa bisuxbatihim annabiya sala allahu calayhi wasalam wa gazwuhum macahu ay duuleen ma ahani wuxuu yidhi nuuru saafir can akhbaari qarni caashir kitaabka weyn oo asna siirada aada loogaga hadlo shariifka la yidhahdo siraajuddiin camar bin cabdillaahi caydaruus kaana min cibaadillaahi ilaahay min cibaadillaahi buu ka mid ahaa aladiina addoommadii tustanzilu raxmatu bidikrihim naxariista ilaahay lagu dalbo inay soo da'do lagu dalbo wa turjaa min allaahi almakfiratu makfirada ilaahayna lagu rejeeyo buu ka mid ahaa bibarakatihim iyo wa sirihim qoladaas buu ka mid ahaa mid kastaana haddee sifadaas wuxuu ku yeeshay wuxuu ahaa toosnaantii ou toosnaa kaana mutabican lilkitaabi wasunnati saalikan calaa dariiqi salafi saalix noocaas nin dhaqankiisu ou yahay buu ahaa wa qaala imaamu nawowiyu wuxuu yidhi fii tahdiibi alasmaa waluqaat maslamata binu cabdimelik baa wuxuu yidhi magaalada kende la yidhaahdo saddex waxaa joogta ina allaha yanzilu lkaysa bihim wa yansuru bihim cala alacdaa saddex ilaahay roobka sababtooda ku soo di'iyo ayaa meeshaa ku sugan buu yidhi ninkaa rajo bin xaywan la yidhaahdo cibaadata binu nasi iyo cadiy binu cadiy dhammaantood waxaas iyo wax aan la tirin karinin waxay noo wada sheegahayaan dadka fiican inay yihiin ayaga in lagu dalbo khayrka oo dhan ilaahay looga helo naxariistaa ilaahay ku soo di'iyaa farajkaa lagu furaa ciriirigaa looga baxaa
رسولك واكيلا حديث كان عليه الصلاة والسلام طوبى للمخلصين أولئك مساحبي حدجها تنجلي عنهم كل فتنة الظلمة waxaa jannada iska leh qolada mukhlisinta ah oo camalkooda iyo cibaadadooda iyo caqiidadooda intaba ilaahay uu kali yeelay oo khaalis yeelay aan cidna wax uga rabin madaxnimo ku rabin تعليم يا جامع إنما كربين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إلهي وكاسر دار تجنة كواس أن علو أدون كربين فساد كسمينين كليا إسكالبا إلهي قفكم مردو علو دونها يو مدح النقطة دو سياسي النقطة دو جامع هبل هل يجري هذا بروفيس فلان دينته أي نقطة واحد نوع عاصة ما كوبيا كعبي ميسي وحاضر بتواد هالشباب القلية كوسو بريسيس مركز طوبى للمخلصين ولا ذا مخلصين تاع الجنة إسكالبا النبي عليه الصلاة والسلام أولئك مسابيح الدجال مجدجة افتين نضو دي ويو يركواس مجدية افتين كودي وي أيها سرادها يعرض تنجلي عنهم كل فتنة دلما ما بيصير كايا وحكى فيد ميسا في النكست أو مجدئة أما في النكست أو فربضان أما النب والبقو جرا أيها كفيد ما هي اسألك بما هي أيها فرد كي في النكست أيها يكفيد ميسا تنجلي عنهم كل فتنة دلما في النكست أو مظلومة ما يصير كايا فرجك وحكوي ماذا تدك إلهي وناس لبما دعوه تدك وناس أنت إجوغان إلهي هو كان لفيري وحديث رسولك هو كياها قيامة من عضوه وعلى وجه الأرض من يقول الله الله أيضا نلكبا قف إلهي أخالص هي توحيد كوجوه قيامة نعميس أما داهية نعميس نبكو نعماي مركب محاي كتوسين هي شرطة تتكفي عن أي أو الباب وبلايا الأرك ما هي أنت تتكفي عن أوجوه كواس مركب وناكسن وكواس للي تنجلي عنهم كل فتنة ذا وكوا ندى أنك شيكين يجي أمثال شو dadka fiican marka ay joogaan hadda anaga waqti yadi fiicnaa ee dadka wanaagsan oo suluuxaha noo joogtay waxaan oo kale miyay dhici jireen maya maba dhici karin ilaahay buu weydiisanayaa inuu ka faydo ilaahay uu aqbalaya maba la arkayo laakiin markii waqtigu xumaado sidaan ay noqonaysaa yadhabu Allahu saalihin al-awwal fal-awwal ويبقى حثالة من حثالة الشعير لا يباليهم الله باله إلهي دتك في عنبو الأول فالأول قلنا ما يباليه ويبقى حثالة من حثالة الشعير وحاهرين بونشة قمندق وكلا لا يباليهم الله باله إلهي أوسى وحبكم فلينا تضمنتنا وقعمها تاجن يا دو برين إيو دو قلقلان هيو عيدوا وحكوا فلي ما يسبق يا بريدي سوحكوا فلها يوم انت في عناية لدمه انت هرتي وين وحلقوا فليه ما waxa hadda aad aragtay baa dhici lahaa iyadoo dad fiican u joogo ma ilaahay buu weydiisan lahaa inkastoo aqbalka laftiisana la dib dhigo iyadoo laga yaabo qofkii inuu joogo yaa ciqaab ummadda la ciqaabayo daraadeed aqbalkii dib loo dhiga oo ijaabadii ay dib dhacda marka intii fiicneed inay dhamaatay in ijaabadii maqan tahay labaduba waa macquul إلهي وحن ويدي سنينا صلحدي ووناك سنيد أو قفك سيدي سبع مركي أو سمايو وحي أساقا لقربي أيو وحر بإلهي كجارة أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم بإلهي كلي أوفي بلانتاي ده أنا بلانتي نان أوفي مركي أديك وحي لقربي آد سمايسو أو ألتي ما دو معاهدتي إلهي أعظم ما يسترته أو أوامرتي أعظم ما يسترته أو أدوني ماذا خدمة دي اللي قاعد بحنا أعظم ما يسوي مركز أنا إلهي واحد ربتي كسينية أقبل كي مركز هذا ليس مركز الإجابة دي ليس
oofiya ballantayda ballantiinaan idin oofi wey haddaad markii qofku toosnaado waa kaa midka la aqbalay waxaa la yidhahdaa karaamadu iyo mucjizadu labaduba waa laba shahaado mucjizadu waxay shahaado u tahay addoonkaan risaalada sheegan ee ay ka daahirtay mucjizadu risaalada uu sheeganaya inay run tahay bay shahaado u tahay markhaati u tahay sadaqa cabdii fii kulli maa yubaliqu canii oo kale bay la mid tahay baa la yidhahdaa mucjizadu addoonkaygu wuxuu ku run sheegay waxa uu xaggayga ka keenay ama aniga u igala yimid risaalada iyo gidi addoonkan saalaxa ee karaamadu ay ka dhacaysana waxay la mid tahay addoonkaygaan waxaan uu sheeganhayo oo salaaxada ah ama diinta ah ama walnimada ah waa runtiis bay la mid markii karaamo ilaahay siiyo marka shahaadada waxaa la yidhaha mucjizada iyo karaamada labaduba waxay shaahid u yihiin markhaati fur u yihiin addoonkan waxa uu sheeganaya inay runtiista waxaa la yidhahdaa qofkaasu laba waa inuu isla wataa ictiqaad mabniyun bidaliil ictiqaad saxiixa oo wata daliilkii sharciga ahaa camal saalixa calaa wafqi shareecati اlislaam camal saalixahoo shareecadii islaamka waafaqsan oo calaa manhaji shareecati اlislaam ku binaysan haddii intaad maanta o dhan dadaalayso aan waxaagu ahayn calaa manhaji shareecati اlislaam ee waxba ma aha xukumkaaga ama waxa aad sheegan ama waxa aad sheegin waxa ugu weyn waxaa la yidhaahdaa waxa weeye salaamatuha can ictiraadi sharci waxa aad samaynayso ama cibaada ama cilmi ah ama waa inay noqdaan wax ka nabadgalay shareecadu inay bushiso ictiraadu sharci waa inay ka nabadgalaan marka cibaadadaadu waa inaysan ahayn cibaado muctarido sharci ah dee salaadaad tukaniyo soonkaad tukaniyo wax aad samaynayso aysan ahayn wax ku fadhiya calaa manhaji shareeca laga aqbali maayo lidaalika dadkii sulaxada ahaa ee ijaabada watay dhammaantood waxay ahaayeen dad istiqaamadooda daahirkaahu ay mustaqiim tahay oo shareecada daahirkeeda ku toosan oo habeen iyo maalin usoo jeeda cibaadada oo khidmadii looga baahnaa la yimid bay ahaayeen wax cidlo laguma gaaro wax la iska hela ma aha haddaadan marka hore lafahaaga laylyin istiqaamaynin dariiqii wanaagsanaa aadan ku toosin qabuul heli mayse marka aad qabuulka helayso waa inaad odu marka hore istiqaamadii la timaada kuwii istiqaamada lahaa bay ahaayeen kuwii qabuulka helay oo shahaadada watay waxaan isfaraynaa mar labaad dadkii wanaagsanaa wixii ay ilaahay wax uga heleen in nala ka helaa la rabaa waxa weeye manhaj saxiixa iyo manhaj iyo muctaqid saxiixa inaad la timaadid baa la rabaa caqiide jaazima oo saxiixa iyo manhaj ilaahay ogol yahay in loogu cibaadaysto manhajka ilaahay ogol yahay in loogu cibaadaysto waa manhajkii jumhuur اlislaam madaahib اlarbaca waa kaas waa midkuu diintiisa ilahay kusoo ilaaliyey ilahay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun buu yihi manhajka ilaahay diintiisu kusoo ilaaliyana waa kaas wax soo ilaashamay intaas oo manhaj baa abuurmay mid walba waa baaba waktiya waxaa jira niman hadda muctasila la oran jira oo kale iyo caalamka waxay ka dhowreen wax kale dadkii ahlu sunna ahaa ama madaahib ulislaam ahaa ama fulan inkastoo ayagu madaahibta qaarkood u sheegan jiray kutubtoodiina waa dhameeyeen iyagiina way dhameeyeen ilaa 400 sano bay awood dowladaha oo dhan ba ayaga ahaa awood bay ku haysteen wax ku soo duulay lama yaqaan ayagii manhajkoodii waa tirteen لأنه وجه منهج لو إلى أن هي سنة منهج بعد إلى أبوه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا الله الحافظون مركب منهج كإلهي الدين تسكسو إلى لي تفسير كذي يا حديث كذي يا فقه كذي يا آلة كذي يا تصوف كذي ضمان ومنهج كاس جمهور الإسلام مذاهب الأربعة
markay culimadu ka hadlayaan hadda nimanka la yiraahdo shiicada oo kale yaa waxa la yiraahdaa shiicadu hadday baadil rasmiya tahay sida firaqdii kale u baabaday u baabi lahaayeen marka waxaad garanaysaa inaysan baadil lahayn boqolaalkii firqooyinkii kale oo ayaga ka xoog badnaa siday u baaba'een ayay u baabi lahaayeen waa baadil marka ma oran karaysi inkastoo shiicada hadda ayaga laftooda qaybo badan oo xaq jira ku jira laakiin intooda fiican ama fi shiica weynto wax ay kaga duwan yihiin ba jumhuurul islaam waa wax fara ku tiris oo yar yar wax iska yar yar weeye oo farac waxa la yiraahdaa waxay ku xadgudbeen wax loo baahnaa in la jeclaado waa rasuulka iyo aalkiisii iyo maxabadooda ku xadgudbeen baa la yiraahdaa marka shay loo baahnaa ku xadgudubkiisa maxabadiisa awal la is amray wax weyn ma aha ceeb ma keenayo waxaan isfaraynaa istiqaamo dadka wanaagsanaa oo sulxada ahaa waxay ku gaareen ilaahay agtiisa wixii ay uga gaareen oo waxa aad arkayso xamalatu sharcigii ay u leeyihiin kuwa khayrku sababtooda ku soo dega weeye kuwa makfirada sababtooda lagu gaaro weeye raggale waayo waa raggii xamalatu sharciga ahaa waa raggii warasatu lambiya ahaa waa kuwa cumdatu diin wa shareeca ah oo loogu noqdo shareecada ragga sidaa kulo waxay ku gaareen halkaas waa istiqaamadii hana ka helo toosnaantii ha la helo dhaqankii wanaagsanaa oo diineed ha la helo dasiisada iyo balaayada iyo waxa maanta jira alla iska ilaaliyo meel cibaado aad ku cibaadaysatay maanta waxa jira dasiisadooda ma ku gaaraysid meel maal dhaweyd kuwa rag baa isweydiinayo xajkii hore yaan anagoo joogna maka roobdoon baa la akrinayay marka ninka imaamul maka ah yaa hadlay wuxuu yidhi mashaaikhdii hore waxaa dhici jirtay buu yidhi dhibaatadan oo kale markay timaado oo ayaga iyo dadkaasu ay gacmaha ilaahay u taagaan ninkaasu gacmahaas meeshii isagoo taagan dhibaatadii ilaahay uu gacmaha uga taagahaya markaasba faraj in la helo roobkii do balaayadii kala baaba'do markaasba maantana intayadaas kacbada dhooman oo malaayiinta ah haddaan halkaa isdaadino ilaah waa warayaan dhahno waxna laka aqbalahaya male maxaa keenay buu yidhi aruntii waxaa keenay buu yidhi laba arrimood oo waqtigii hore jiray yaan maanta midna jirin horta waxa lagu dhaqmahayey oo ilaahay lagu caabudahayey wax runa bay ahaayeen buu yidhi manhaj run ah baa qofku ilaahay ugu cibaadaysanayay oo ku dhaqmahayay maantana qof walba wuxuu rabo diin ka dhigto waad inka arki buu yidhi nin walba wuxuu rabo yow ka diin dhigto emailkan kala soo baxahayaaba ku leeyihi ko midda labaad dadkaas waxay wada ahaayeen buu yidhi diintooda diin ikhlaasa oo ilaahay keliya u khaalisa maantana nin walba adduunyo ku rabaa waxaa loo tartamahayaa waa adduunyo saasaan marka waxba loo aqbalay waa saas waa intaan waxa weeye manhajkiina waa lumay oo waxa la haystaa wax manhaj diineed min caqiido ilaa wixii ugu yaraa waa la lumiyey waxa la doonahayana waa wada adduunyo annaga waxaa noo dheeri ah dadka kaloo noga sii duwanah bilkuliyati diintayadii iftiraan ka dhigna haddaan soomaalina been abuur caqiidooy cibaadooy waxay munaakaxoy mucaamalo gidi been abuur diintii oo taana mid kale waxaad arkaysaa kitaabkaas hadda aad aragto ah tanwiirulmasaalik soo ma ahan buu ku leeyahay oo ku leeyahay waa bisharxi adilati cumdati saalik kanaan akrinayaa buu ku leeyahay waxaa la odhanayaa kitaabkii cumdaha baa la akrinayaa zubad baa la akrinayaa fulaan baa la akrinayaa mas'alo walba siday ugu taala si ka bedelna waa loo fasiraya وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله كذب وتصيد آيات دي بيكو عد وحي الكتاب كي كويا لما هو حلا غنيا مركاسا محال ورنيا من هاج كالغا أخيات دير وحال لتحسبوه كتاب كان وحال الله سوق هذا هو ترويج been abuur baa dadkii looga dhigay diin sidii dadkii diinta been abuurta loo geli jirayna waa loo galay dadku hadday diinta been abuurtaan
والد اللي أدونك اللي إهانية أدونك بس اللي هو إهانية سيداس هذا سومالي دوسون تنتعي تبتاس أو كلا بيها إلهي مركي غير بني إسرائيل أي بدشين دينتي وهذا اكتهينو أو ما أورن دين كلام قادن waxay yiraahdeen tawreed waa tan ma ahana waa tan waa sida hadda maanta ay taagan tawreed waa tan ma aha marka ilaahay muxuu ku xukumay horta midii magaca tawreed lahayd bay jeclaadeen oo tii tawreedii runta ay ka jeclaadeen sida maanta tawreedii runta ahayd waxay ka jeclaadeen tii magaca tawreed la siiyay aan tawreedda ahayn oo ilaahay gaarsiiyay in la yiraahdo wa ushribu fi qulubihim al-ijla مركز إلهي ما حكوا حكمي إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا قال دي الدين تابعين أبور كاقالتي إلهي عرديس با كل عمبالير دلي إيهانا الدون كانوا وكل عضي مركز أيها سأل الله حكمي محالة دواديك وكذلك نجزي المفترين عد الله عد الدين تكون بين أبورته أما الدين بين أبورة كالدين ديكتا sidaasaan u dhaqaynaa baa ilaahay caradaa iyo ihaanadaas ciddii maanta ihaanada ka maqan sheega meesha ihaanadooda marayso geedkay taagan yihiinba kii meel jooga iyo labadii meel joogta iyo saddexdii meel joogta meeshii joogaan baa lagu ihaaniyey ilaa hadda ay ku socoto halkii ilaahay ardada uga abuuray ee degaan ahaan oo u siiyey ee uu makaniyay hal dhimana ma jirto laakiin waa maxay waxuunka xagga ilaahay ka yimid baa lagu fulinaya cid walba ku fulinaysa gaal iyo muslim markii diintayadii oo dhan intaan ka tagnay xaqa ahayd mid been abuur aan ka diin dhiganay meel walba aan ordayno wax walba aan bedelnay annagina sidii loo gali jiray qoladaas baana loo galay ilaahay dhibka naga saaro ilaahay dhibka naga saaro sawaabka ilaahay hanoo celiyo ilaahu adiga awooda iskale ilaahu ada awooda iskale ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa baadilka iyo fasaadka iftiraha been abuurka waxa aan diinta ahayn oo aragno inaysan diin ahayn oo dadkayga ka diin dhigtay ilaahu naga zuuli ilaahu diinta xaqa oo raadiga aad ka tahay oo sawaabka ilaahu taas noo ilaahu taa nagu ilhaami ayada ilaahu najcalaysii ilaahu ayada noo taysiiro rabadaanta kuwa aad xoraysa ilaahu naga dhig ilaahu ada subxaanahu wa tacaala addoommo mudnimiina oo ducafaa oo aad u liitaanahaya ilaahu nasaamax ilaahu baryada ha nagu qadini waxaa laga yaabaa kuwii aqbalka u suubaday inaanaan ahayne ilaahayow jafahayaga iyo xumaantayada nagu aqbal ilaahu ridahaagana sii ilaahu ridahaagana sii ilaahu ridahaagana sii ilaahu kuwaad rabadaanta xoraysa naga dhig ilaahu dariiqa istiqaamada kuwii ku toosnaada naga dhig ilaahu adduunyadan fasaadka ah nagu halmaamin ilaahu hana halmaamin ilaahu kuwaad halmaantay ha naga dhigin ilaahu kuwa nadradaada naxariista ha ku dhacda naga dhig ilaahu kuwa eegidaada carada ha ku dhacda ha naga dhigin ilaahuna toosi allahuma salli calaa sayidina maxamed faatix bismillah ducada sheekha allah noo aqbalo cilmiga uu noo jeeda allah nagu anfaco waxay la tahay cilmi waxaan lagu sheegahay waa inaan ku dhaqanay ma ahan in oo la iska dhageysto hadda sabanaanta waxa la moodaa in diintiiba laga dhigta taariikh camal oo wax la iska ogaado maaragtay qofku waxa jira marman meelahaas uu madaxifta museumka uu tago wax iska fiirsada camal marka diintuna saas maana waa wax laga rabo inaad ku dhaqanto aayada lagu sheegayo iyo xadiis lagu sheegayo inaad macaamiladaada iyo dhaqanka ku dabaqday Allah naga dhigo ku dhaqma Allah noo fuudeeyo culumtana hadii la iskaga dhaqmi kara in la bartay rabaa aanu baranno oo ku dadaalno oo Ilaahay uga baqnay Allah noo fuudeeyo